kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada warbaahinteena Minsom oo mar walba idin la diyaar ah warar iyo barnaamijyo tayo leh oo dhexdhexaada kuna soo dhawaada barnaamijkeena toddobaadka Soomaalida oo aad toddobaadkiiba hal mar ka dhageysataan warbaahinteena Minsom toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa barnaamijkeena toddobaadka Soomaalida dhismayaasha kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada Garowe ee caasimadda Puntland sanadihii u dambeeyay waxa ka socday magaalada Garowe ee caasimadda Puntland horumar ballaaran oo laga sameeyay dhismayaasha wadooyinka magaalada dhexmara dhirayn iyo mashruuca biyo saarka magaalada oo wali gacanta lagu hayo kobacaasi oo ay horseeday xasilooni iyo maqaamkeeda caasimad ayaa ka horumartay horumarinta kaabayaasha asaasiga ah mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee ugu waaweyn ee midna la hirgeliyay kan kana gacanta lagu hayo ayaa waxa ka mid ah buundo weyn oo 140 mitir ah oo dul marta toga magaalada Garowe iyo wadooyin laami ah oo loo dhisay si loo fududeeyo isu socodka magaalada buundada toga Garowe iyo mashaariicda laamiga ah ee la xiriira waxa ay ka dhigan tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dowlad goboleedka Puntland taasi oo si toos ah wax uga qabanaysa caqabadaha deegaanka ee daba dheeraaday iyo himilooyinka dhaqaale ee mustaqbalka fog Garowe oo ah magaalo madaxda maamulka Puntland ayaa taariikh ahaan xilli roobaadka guga iyo dayrta ay adag tahay isu socodka qaybaha waqooyiga iyo koonfurta ee magaaladu waxayna curyaamiyeen isu socodka saadka badeecadaha muhiimka ah iyo go'doominta bulshada dhisida buundo casri ah waxa ay ahayd daruuri asaasi ah oo ka shaqeynaysa magaalada isu socodkeeda dhamaystirka buundada ayaa ah horumarka Garowe iyo isku xirka wadooyinka kale ee gudaha mashaariicda wadooyinka ayaa ah kuwa loogu talagalay in lagu casriyeeyo kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada laguna dhimo wadooyinka hore ee ciriiriga ahaa isla markaana la wanaajiyo xiriirka hay'adaha dawladda goobaha la degan yahay iyo xarumaha ganacsiga mashruuca biyo saarka magaalada Garowe ayaa ah kaabaha dhaqaale ee labaad ee ugu weyn ee hadda kana socda magaalada Garowe muuqaalka magaalada oo lagu garto dhul ballaaran iyo togag biyo oo dabiici ah ayaa ka dhigaysa mid aad ugu nugul fatahaadaha labada xilli roobaad ee guga iyo dayrta magaalada ayaa waxa ka muuqatay lahaanshaha nidaam biyo mareen oo rasmi ah taasi oo keenaysay in biyaha roobku burburiyaan wadooyinka magaalada gala guryahana ay galaan sidoo kale biyaha fariista oo keena cudurro mashruuca biyo saarka Garowe ayaa ah mashruuc muhiim ah oo kaabayaasha dhaqaalaha ee caasimadda dowladda Puntland mashruuca ay ujeedkiisu tahay in la yareeyo saameynta daadka ee xilli roobaadka oo dhibaato weyn ku haya dadweynaha magaalada Garowe dhaqaalaha iyo caafimaadka bulshadaba mashruuca biyo saarka ayaa ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka dhisidda adkeysiga cimilada magaalada ana horumar la taaban karo laguna faani karo in la maalgeliyo iyada oo ay iskaashanayaan dowladda deeq-bixiyayaasha caalamiga ah iyo dadka deegaanku hal jaamac oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda dhisaysa ee loo yaqaan TTN oo warbaahinta Garowe kula hadlayay ayaa mashruucan ka waramay waxqabad muddo badan soo socday oo horay in badan oo ka midana loo soo qabtay haday wadooyin yahay haday buundooyin yihiin iyo maantay oo ah tan ugu muhiimsan oo ama hygiene-keena ama caafimaadkeena qaybta ugu mudan ka qaadanaysa iyo horumarka kaabayaasha ee gobolka hadafka koowaad ee mashruuca biyo mareenka Garowe waa yareynta fatahaadaha iyo ilaalinta dadka deegaanka si loo yareeyo khasaaraha dhaqaale ee la xiriira xilli roobaadka ka deegaanka iyo ganacsigu waxay kaalin ka qaateen horumarinta dhismayaashaasi horumarineed iyaga oo mararka qaarna muujiyay tabarucaad maaliyadeed dareen xoogan oo ku aadan lahaansho deegaan mashruuca wadooyinka iyo biyo saarka Garowe waxa ay marag madoon u tahay heerka lagu gaari karo isku tashi shacab iyo maamul iyadoo la helayo hoggaan maxalli ah oo ay ka go'an tahay in uu wax u qabto dadka dalka iyo deegaankaba uu maamulayo iyo iskaashi caalami ah oo wax ku ool ah waxa dadka reer Garowe iyo maamulkooda uga gudbeen jawaab celin degdeg ah oo falcelin u ah una baahnayd istiraatiijiyad firfircoon oo looga hortagi karo adkeysiga cimilada magaalooyinka ee isbedelaysa intaas ayaan ku soo gabagabanayaa dhageystayaal barnaamijkeena toddobaadka Soomaalida ee toddobaadkan oo aan la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Muuse intaan mar dambe kulmi doonana haddii Allah waddo la go'do waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyaha